bisha hadda soo socota ee 11aad kowdeeda inuu bilaami doono qalab dhigista ama riig qodista inuu bilaami doono haddii ilaahay uu ogolaado insha Allah tacaala sidoo kale waxaan ku rajaynahay in asna la dhagax dhigi doono January kowdeeda 2021 iskuulka waxbarashada ee ah dugsiga hoose dhexe oo hogaaminayso Mario sidoo kale asna waxaa la dhagax dhigayaa oo mashruuciisu uu wato Axmed Ciise Muuse madrasadii quraanka kariimka iyo masaajidkii ama macbadkii cibaadada Rabbi subhanahu wa ta'ala oo asna lagu horjiro in la dhiso bisha 12aad bilowgeeda ama dhaxmartameeda waa sidii loo sheegay waxaan ka waramayaa mujtamaca halka isku yimid khaasatan beesha Maxamed Ibrahim guriga wuxuu ka mid yahay guriyii hore u jiray oo ku soo kordha magaca hadda lagu baxay oo gaarka ah iyo qarashka iyo waxa hadda qallayna waa wax Maxamed Ibrahim iska leeyahay maahana waxa hadda beeleedahay maahan mudada badan ku soo heelana in xafadan quruxda badan maanta intaas qof ay isugu keenaan iyagoo jeedkooda ah in deegaan cusub meesha ka sameeyaan deegaankaasna ay u bixiyaan magac qurux badan oo deegaanka Qudus ay u bixiyeen aad iyo aad baan dadaalka ay geeyeen sidii ka mahadcelinayna waxa weeye mar haddii deegaan la aasaasay in la helo qaybihiisa kaleeto oo horumarinada in la helo ayadana ku darsataan ma sida maanta ugu waxsay ayadana dadaalka halgelisaan sida xarumihii waxbarashada horumarinta iyo fiiyadii oo hadda atraan muddo dhow ayuu sameysmi doonaa haddii alla idmo marka ayadana dadaalkan halka ka sii wadaan waa in kaga mahadcelinayna waxaan leenahay dadaalka ku dadaala marka waxa meeshan waa meel aad u qurux badan oo deegaan ku fiican oo beero iyo wax kasta ka sameeyay fiican marka ayadana waa in maanta ay ku dadaashaan sida ay maalgelin lahaydeen oo deegaan ku maalgelin lahaydeen oo deegaanka wax u qaban lahaydeen marka beeshan kaliinta la aasaaso maanta la dhagax dhigo oo wax loo sameeyay looga tigina hal camiro waxay noo tahay runtii guul inaan maantayto deegaan cusub oo Maxamed Ibrahim leeyahay aan isugu nimaadno kulli aniga khaasatan farxad bay ii tahay muddo hadda 26 sano ma arag intaas oo tolkaya marka aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta indhahaygu doogsadaan aan tolkay meeshaan ku arko deegaankan cusub oo la sameynayana si fiican baan u soo dhaweynayaa saadan ilaahay qandaara Maxamedna magaalo ay ku tusoo meesha ka muujiya marka wax muujisan baan anagu imaanaynaa xoog iyo garba iyo marna waa mid taawanahay idinkuna maadaama aad Maxamed Ibrahim oo cabirtaan oo calaamadisan waan ugu soo dhaweynaa Allah ku garab galo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa deegaankan cusub dadkii ka qayb qaatay oo qurba joog iyo daljoog inta way isugu jira ka dhalinyarada aad baan ugu faraxsanahay waxaan aad iyo aad u rajaynayaa insha Allah Ilaahay idinkiisa in loo baahnaa deegaameyntan quruxda badan anigu wax yar oo fikrada baan damcayna ku darsaday maadaama markii hore talagelyadu ay iska badnayd laakiin haddii tolku iyo bulshadu ay halkan isla garteen waa lama dhaafi karo xoogaa waxaan isla kilometriska maadaama ay isu xukumayaan centradu ay noqon kartana centrada ka mid ah xagga distancega markii laga hadlayo ama degmooyinka ama deegaameynta in xoogaa yar xagga loo dhinacaas la xijiyo baan jeclaystay talagelyo ahaan intaas waa talagelyo laakiin bulshada iyo dadka waxgaradka ahaa haddii isla garteen waa insha Allah sidaasay ku dhan tahay cid kastoo hadda wax wanaaga samaynaysa oo deegaan samaynaysa oo deegaan nabadgelyo samaynaysa oo wax sharaf iyo karaamada dadka ku soo kordhinaysa in loo mahadnaqo oo lagu taakuleeyo sida hadda qurbajoogii Cabdikariim Maxamed Cabdillah oo ka hadlaya iyadoo kale cid kasta oo wax qabanaysa oo wax soo kordhisa in la taageero wax kale yiraahdo deegaankaasu kale waa deegaan ugu soo kordhay oo qof walba meesha soo istaagay baa ka warbixiyay marka kallay Soomaali weyn iyo beesha Maxamed Ibrahim intaba waxaan ugu baaqaynaa deegaankaas deegaan Soomaaliyeed inuu yahay oo aan la kala xidhin marka wax kale yiraahdo kallay hadal badan maarata meesha igama furna waxaan baahanay ilmaha awiyada ilmaha reerkiisi jifadiisi aabihiisi iyo hooyadiis baa meesha degay hadda rag baa waxay yiraahdeen meesha qudbiga islaamka loo bixiyo
marka qudus baa la yidhi isla halkii marka iyadana waxaa la yeelaa talaha lagu daro lagala maarmaankeeni talaha lagu daro waxaa laga daaya dhugashada yaa layna dhigan waa ka dhaxa salaadaana waxaan kaloo aan salaamayaa bulshada qaybeeda kala duwan ee shirka xafladda ka soo qayb gashay magaalada magaceedu waa qudus bulshada qaybeeda kala duwan ee ururka haweenka dhallinyarada waxgaradka aqoon-yahanka culummada ciidanka amniga ilaalinaya dhammaan bahda saxaafadda intaa la salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu deegaankaana waa deegaan cusub waan soo dhaweynaynaa aad baan u soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol dadka deegaan maxamed ibraahim weeye dadka degaya waan ka mid noqon doonaa insha allahu aad baan u soo dhaweynayaa aad baan u mahadsantihiin asalaamu calaykum intaan deegaanka degan lahay iyo haddii qurbada la joogaba midnimo iyo wadajir wax loo qabsadana waa loo baahan yahay waxaan leeyahay haddii ilaahay awoodda le ogolaado waxaa la sheegay maxamed ibraahim uusan kala xiginin waa taageersanaa fakarkaas deegaan maxamed ibraahim weeye waa soo dhawaynaynaa waxbaan ka qabsanaynaa taasna sidaa wey waxaan soo dhawaynaynaa deegaankan cusub oo magaciisa iyo meesha loo sahamiyeyba ay yihiin meel istraatiijiya insha allah waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan in looga hirgeliyo xarumaha nolosha asaaska u ah primary levelka sida ceelkii biyaha iyo xarumihii caafimaadka iyo waxbarashada aad baan ugu soo dhawaynaynaa waana ku faraxsannahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu si gaar ahaaneed anoo uga hadlaya beesha maanta tamartiqaadkan samaysay dhammaantiin aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin baan ila odhanayaa tan xigta xaqiiqdii aad baan ugu faraxsanahay inaan bulsho intaan la eg ay dhacdo inaan deegaan cusub ay dhacdo inaan maaragtay u horseedno inaan u qabanqaabinno in intaan in la eg la isugu yimaado si horumar guud loo gaaro intii gida kollay hadalka intiisa badnayd horaa loo yidhi xaqiiqiyan waxaan aad mar labaad iyo mar saddexaadba uga mahadnaqayaa qurba joogta waxaan uga mahad celinayaa dhammaan gabdhaha qurba joogta ah oo ka taxadaraya mar walba inay gaaraan hiigsadaan raadiyaan bulshaweynta maxamed ibraahim deegaan cusub baa meesha laga asaasay waxaan rajaynayaa deegaankaas deegaankii lagu baraara inuu noqdaan rajaynayaa oo mid nabadgelya noqda oo dadku ay isku arkaan baan rajaynaynaa qudus baanu halkaa ugu walqallay magaaladaas waa magaalo majeerteen waa magaalo daarood waa magaalo maxamuud ibraahim ninkii doonaa degi kara ninkii doonaa wax ku darsan kara ninkii doonaa imaan kara magaaladaasi saas weeye qoladadeeda markaan isbeenayno soo abaabulshayna waxbaan soo kordhinnay ilaahay kulligeed hayda ku guuleeyo